dulqarnayn wuu geeriyooday ilaahay ha u naxariisto maanta muna geeriyoon shalayna muna geeriyoon laakiin maalin ka horreysay ayuu geeriyooday haddaadan ogeyn hadda ogow marka fadlan hal mar dulqarnayn aanu ducayno midda kale waxa weeyaan ninkan ilaahay aqliga siiyey ee aadka u xigmadda badnaa wuu geeriyooday oo ilaahay ha u naxariisto laakiinse ereyadiisii iyo hadalladiisii lama ilaawi doono midda kale aadka ula yaabin waxa weeyaan dulqarnayn markii uu noolaa dadku aad bay buubuunin jireen waxayna ka hadli jireen qaabka uu hadlayo iyo maskaxdiisu sida u shaqaynayso laakiin markii uu geeriyooday sidii looga hadli jiray waaga wax uga hadlaya haba yaraatee ma jirto ilaas weydiinaysid baa laga yaabaa maxaa ku dhacay sababta u geeriyooday maxay tahay ma hubo laakiin waxaa la yidhi middi ayaa lagu dilay taasina waxay kuu sheegaysaa qof walba oo ibnu aadam ah ama madaxweyne ha ahaado ama dukaan meel ha ku iibiyo ama dhar ha iibiyo ama ha yara xanuusnaado ama qof caadi ha ahaado ama ha ahaado arday ama ha ahaado macalin ama ha ahaado madaxweyne ku-xigeen ama ha ahaado dhakhtar qof uunbaa jira sabab la'aan u naca sababta saa idiin leeya waxa weeyaan bal ninkaas ilaahay baan kugu dhaarshee waxa lagu dili karo oo uu ninkaasi samayn karo maxay tahay ma isweydiisay weli manaha sababta qofkaa loo dilaayo ama waxa lagu dili karo maxay tahay waxaa dhacday inaan fiideo ka sameeyo dulqarnayn markii uu hadallada baawar kale ku hadli jiray kadibna ma garanayo qof whatsappkayga soo siiyey whatsappkayga ayuu igala soo xiriiray manaha cod buu isoo duubay qoraallan uu isoo qoray marka codkiisa inaan idinla wadaago ma rabo laakiin waxaan rabaa waxa uu igu dhahay in aan hal mar idiin sheego waxaa dhacday in aan anigu isaga saan ku dhaho marka ugu horreysa midda kale anu cabdirasaaqaan waxaan jeclaan lahaaba wiilkan in aan 25 daqiiqo isla yara sheekaysano unbal kadibna sidaan buu isoo qoray assalaamu calaykum saaxiib waa dulqarnayn dadka waraysi uma ballan qaado laakiin adiga isoo qabo anaa kuu warrami markaasoo markuu fiideowan daawaday wuxuu u malaynayay inaan waraysi ka rabo oo macnaha uu qalad fahmay laakiin anigu waxaan ka waday waxaan rabaa un 20 daqiiqo without camera inaan la sheekaysto sababtoo ah dadka aqoonta leh ee ay wax ku duugan yihiin haddii aad la sheekaysatid waxbaad ka faa'iidi qof maalayacni haddaad la sheekaysatidna inaad wax ka faa'iidi iska dhaafe adaa sidiisoo kale noqon marka anigu waxaan rabaa un 20 daqiiqo oon labadeedu wada sheekaysano si aan ninkan waxyaabo badan uga faa'iido kadib xagga aan kumuna joojin oo wuxuu isdhahay qofkaani haddii aad malaa intaan ugu daysid dee qof walbaa dhihi kara dulqarnayn baan ay moogtahay qof walba been buu sheegi karaa moogtahay kadibna cod buu isoo raaciyey marka codkaa daari maayo laakiinse wuxuu dhahay baan anu afka idinka sheegi doonaa assalaamu calaykum dad badan waraysi ma siiyo laakiin anigu waan kuu warramayaa sababtoo ah waxaan arkay adigoo iga sheekaynaya horta alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala nin waalan igamuusan dhigin isagaas haalo okay codka macnaha laakiin dadka unbaa yacni birahan aan xiranahay u malaynaya inaan waalanahay marka adiga insha allah waxaan rabaa inaan waraysi ku siiyo waxyaabo kaloo kasii hadlay intaa kale muhiim maaha laakiin midda aan la yaabay waxa weeyaan ninkan aan inagu ku tilmaamayna in uu xanuunsanayo inuu fiidiyo intuu soo daawado uu isdhaho ninkan yaa waayo uu isoo raadiyo uu lambarkayga soo helo uu qoraal ii soo qoro uu haddana cod ii soo raaciyo isagoo weliba isticmaalaya ereyga ah anu ma xanuunsanayo ee dadka unbaa u malaya inaan xanuunsanayo macnaha waalanahay marka ilaahay u naxariisto dulqarnayn wuu geeriyooday laakiinse waxyaabaha aanu ilaawi doonin waxa weeyaan ereyadii uu isticmaali jiray oo ay ka mid yihiin magaalada Garowe la yidhaahdo iyo dalka Holland la yidhaahdo waxaa gawaari badan magaalada Garowe la yidhaahdo hal qof oo driving license haystana ma jiro waan soomanahay gidaarna laadhuubaan ku ciyaarayaa wax macquul ah maaha dad meel iska fadhiya oo halkana u socon quraanjada markaad aragto ama meel bay ka socotaa ama meel bay u socotaa laakiin weli lama arag qof ibnu aadam ah oo meel u iska fadhiya Soomaaliya uma ku arkaysaa hooyo iyo aabbo 10 caruur haysta oo weliba hal qol degan garana maysid xilliga ay hooyada iyo aabbahaasi xaajoodeen laakiin 10 caruur guriga u joogta hal qolna way degan yihiin ninka oromada ah ama ninka xabashiga ee wadankeena jooga bishii wuxuu ku xisaabtamaa 800 ilaa 900 oo doolar lacag gaaraysa laakiin inagu waxaan ku xisaabtanaa 0.7 iyo inaan gidaar fadhiisano Soomaalida markab sun ah ayaa loo keenaa oo macnaha badda looga soo dejiyaa ee markab daawo ay ku jirto looma keeno badda loogama soo dejiyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay lejankaas loo duceeyo